اسمها جودة وزارة عيارها هي دنيرة Somaliland ayaa tan iyo maalintii shalay ahaa iyo intii koobku bilaabmayba ku sugnaa garoonkan Cabdalla Stadium ee Berbera lana socday bal ciyaaraha iyo habsami socodkooda iyo waliba sida ay u socdaan agaasimaha ayaan bal weydiin doonaa guud ahaan inuu noo soo koobo wareeggan intuu bilaabmay iyo kooxihii kala duwanaa ee iska xaadiriyay dhamaadka koobkan iyo wali sida ay xaaladda ciyaaruhu ay tahay agaasima ku soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad bad mahadsantii TV-ga qaranka jamhuuriyadda Somaliland runtii aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa baahinta aad mar walba nala garab taagantihiin ciyaaraha in ay meel fog la gaarsiiyo oo dadka aan u suura gelin in ay garoonka yimaadaan in ay ciyaaraha ogaadaan runtii ciyaaruhu waxay marayaan saragii hore gabagabadiisii waxaa ka qayb galay 12 kooxood iyadoo koox waliba 4 group ay ahaayeen ama 4 qaybood qayb walbana ay ka koobnayd 3 kooxood waxaana soo baxay labada kooxood oo ugu dhibcaha badan qayb walba waxaana hadhaysa hal koox ayaa group walba ka hadhaysa iminka waxa iska xaadiriyay 8 dhamaadka 5 kooxood kooxda dawladda hoose ee Hargeysa kooxda dawladda hoose ee Ceergaabo kooxda Waxool xanaanada xoolaha kooxda dawladda hoose ee Allahu musta'aan Boorama iyo kooxda Goodir Hargeysa waxa iyaduna maanta la filayaa labada kooxood ee hadda wada ciyaaraya ee DP World kooxda DP World Berbera iyo kooxda maaliyadda ee Buuhoodle in mid ka midi ay iska xaadiriso oo ay noqoto tii labeynaysay kooxda wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Hargeysa waxa beritoole la filayaa inay wada ciyaaraan kooxda Gaashaan ee Burco iyo kooxda Gabiley sidoo kale waxa wada ciyaari doona kooxda booliska ee Goodir ee Berbera iyo kooxda Gaashaan ee iyaduna Lascaanood guud ahaan 8 dhamaadka waxa iman doona 8 kooxood waxaana ilaa hadda iska xaadiriyay 5 kooxood 3 kooxoodna waxaanu sugaynaa maanta iyo berri iyo saadaba hadii la ilaahay aad iyo aad agaasimo